Matia waxay ku dhalatay xanuunka kala goysyada. Jidhkeedu wuu jilicsanaa, awoodna wuu ka yaraa. Indhaha dadka kale waxay u muuqatay mid nugul, haweeney aan si dab ah u meel marin. Hitaa haddii ay la hadasho ee qof leeyahay, waxay mutaysan jirtay dharbaaxo adag oo wejiga ah. Kadib markii waalidkeed ay geeriyoodeen, waxay la noolayd eedadeed, qaraabada kaliya ee u hadhay. Laakiin qoyska eedadeed Monty waxba kama ahayn culays mooyaane. Maalin maalmaha ka mid ah, iyada oo dukaamaysanaysa, Monty waxay maqashay kalluumaysato raadinaya qof la dega. Markii uu ka tagay, waxay ka jeexday ogeysiiska derbiga, waxayna lug ku martay maylo badan si ay shaqada u dalbato. Laakiin Everett Lewis, kalluumaysatadii, hal mar ayuu eegay gacmaheeda qaloocan iyo socodkeeda liita, dabadeedna wuu diiday. Wuxuu rumaysnaa in haweeney naafo ah aysan maamuli karin gurigiisa. Maalmo ayaa soo dhaafay, qof kalena shaqada uma imaan. Ugu dambayn Everett wuxuu baabuur ku yimid guriga eedadeed si uu u sheego in la shaqaalaysiiyey. Iyadoo farxad la buursamay, Monty waxay ku carartay guriga si ay alaabteeda u xirxirato. Eedadeed waxay uga digtay haddii aad baxdo, weligaa ha soo noqon. Laakiin Monty haddana waxay fuushay baabuurkaas. Markii ugu horreysay nolosheeda, waxay samaysay go'aan ay iyadu leedahay. Maalintaas wixii ka dambeeyay, Everett subax walba wuu bixi jiray goor hore, wuxuuna soo laaban jiray goor dambe. Mowdie si tartiib ah ayay ula qabsatay nolosheeda cusub. Markasta oo ay hesho waqti firaaqo ah, waxay rinji haraaga ah u adeegsan jirtay inay iftiimiso guriga duuga ah. Meeshii caajiska iyo kelinimada ahayd, farxad degan ayaa buuxisay. Maalin maalmaha ka mid ah, kadib markii ay wax la hadashay saaxiib, Everett ayaa dharbaaxo wejiga uga dhuftay, iyada oo ilmadu indhaha ka buuxaan. Monty waxay u carartay qolkeeda, waxayna bilowday inay ku rinjiyeyso derbiga faro rinji ku wasakhaysan. Mar walba waxay dareemi jirtay inaan la rabin. Hitaa bisadii waxay u ekaan jirtay mid ka dhuumanaysa. Markii saaxiibkii baxay, Everett wuxuu garwaaqsaday inuu aad u xadgudbay. Wuxuu u socday dhanka qolkeeda, wuxuuna maqlay iyada oo dalbanaysa mushaharka 2 bilood. Waxay u sheegtay in haddii uu sidan u sii wado ay bixi doonto. Everett wuxuu u dhiibay $2 ee kaliya ee uu haystay. Lacagtaas Mowdie waxay ku aaday magaalada, waxayna soo iibsatay burushyo rinji. Dabadeedna waxay bilowday inay ku sawirto dunida sida ay u aragto, darbiyada, albaabada, meel walba. Galab ka mid ah, haweeney fasax ku jirtay ayaa albaabka soo garaacday. Waxay tiri waxay bixisay lacag kalluun, balse Everett ma uusan keenin. Markay gudaha eegto, haweeneydii Marwa Tishon waxay aragtay sawirada Mowdie. Digaagan yar ee farxadda leh, adigaa sawiray ayay tiri. Haa, ayay Mowdie si xishood leh u tiri. Wax yar ayuu iska caadi u eg yahay. Laakiin Marwa Tishon way fahamtay waxa ay aragtay. Everett ma fahmin. Wuxuu eegay shimbiraha derbiga ku sawiran, wuxuuna ugu yeeray makhluuqaad yar yar. Everett ma akhrin karin, mana qori karin. Sidaas darteed wuxuu xafidi jiray dhammaan dalabaadka kalluunka, badanna wuu ilaabi jiray. Mowdie waxay soo jeedisay in lagu qoro kaarar yar yar. Wixii markaas ka dambeeyay, Everett wuxuu kalluunka ku iibin jiray gaari, halka Monty ay xisaabta qori jirtay. Maalin ay kalluun u geeyeen Marwa Tishon, waxay aragtay mid ka mid ah kaararka Mowdie ay rinjiyeysay. Waxay weydiisay inay iibsan karto. Intii ay guriga ku soo laabanayeen, Monty waxay dareentay farxad aanay weligeed horay u dareemin. Marnaba ay qiyaasi jirin in qof lacag ka bixin doono farshaxankeeda. Waxay bilowday inay sii rinjiyeyso ubaxyada guga, geedaha xagaaga, beeraha dayrta iyo barafka jiilaalka. Si tartiib ah, Everett isna wuxuu ka soo muuqday sawirada. Isagoo aamusan ayuu u taageeray, xitaa wuxuu bilaabay inuu qabto dhammaan shaqada guriga. Mowdie waxay bilowday inay magaceeda ku saxiixdo sawirada. Maalin maalmaha ka mid ah, Everett ayaa guur u soo bandhigay. Wuxuu sheegay inaanay haysan lacag aroos. Maalintii xigtay, wuxuu xiray dharkiisii ugu fiicnaa, si toos ah ayuu u istaagay, iyaguna way isguursadeen. Ma jirin xaflad, ma jirin ubaxyo ama faraanti, martina ma jirin, dabaaldegnana ma jirin. Everett wuxuu u baxay iibinta kalluunka, Mowdiena guriga ayay joogtay oo